السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. waan idin salaamay dhammaan aqyaarta dulantihiin meel kastoo aad kala joogtaan dunida daafeeda halkaad igala socotaan waa janaalka Wadan Cabdow. Fadlan dhageysta wadii aad igu cusubtahay isku day janaalkan inaad ina subscribe gareyso gambalelkan oo ka dhigato si uu kuu soo gaaro muuqaal kasta oo soo share gareeyo biidnillah. Haddii aad ila joogtay waad ku mahadsantahay ila joogistaada qiimeyntaada quruxda badan. soo dhawow markale kusoo dhawow gacmo furan qalbi saafi ah niyad ku jecel. Haddii aad caafimaad qabto ilaahay kuu zaaidiyo caafimaadkaada, haddii aad xanuunsan tahayna ilaahay caafimaad taama oo dhiigga iyo dhuuxa gala Allah ku siiyo. awlaada intaan haysan ilaahay ha siiyo awlaad baari ah, inta haysatana ilaahay ha u barakeeyo haga yeelo waladu saalix. kii aan guursanin ilaahay guur xalaal ha siiyo, midka guursadana guurkiisa ilaahay ha ku xasiliyo oo ilaahay ha ka dhigo kuwa nolosha isku fahmo oo isku waara. soo dhawaada markale waxaan rajeynaa dhammaantiin inaad caafimaad qabtaan. maanta waxaan idin wadaa qiso haddii aad maqasho qof bilaadan dambo aad ka kaaftoomi doonto oo bilaadan dambe waxay si aadan dhihi doonin insha Allah. qisadeena ayaan bilaabi doonaa, adigana isku day inaad garab istaagto oo aad la wadaagto walaalaha kale oo na sii gaarsiiso insha Allah. qisadan waxaa ka sheekeynayo nin sheekh oo caan ah oo la aqaanayo ka sheekeynayo. wuxuu dhahay waxaan soo galay safar ama aan rabay inaan aado safar. run ahaantii safarkaasna waxa uu yahaa muhiim, ma rabin inuu iga tago safarkaas ama diyaaradda aan raacay inay iga tagto maanan rabin. waxaa dhacday ama aan ku fikiray in aan nuska hore seexdo habeenkii 8 saacna aan soo kaco oo aan masaajidka iska galo oo ilaahay aan baryo oo ilaahay subxaanahu wa ta'aala baryadiisa aan meesha iska baryo ilaa waagu ka baryayo salaada subax markaan tukadana kadib aan sidaas gaarigeyga ku raaco diyaaradeyda ku raaco oo aan iska baxo. wuxuu dhahay waan seexday 8 habeenimo ayaan soo kacay ama 2 habeenimo ayaan soo kacay. waan weysaystay masaajidkii ayaan aaday. wuxuu dhahay masaajidka markii la soo galo waxaa jirta 2 rakac oo la tukado oo masaajidka la salaamayo. 2 rakac ayaan tukaday alxamdulillah. wuxuu dhahay waan iska quraan ayaan iska aqristay, salaatul leil ayaan iska tukaday, waan cibaadaystay. wuxuu dhahay markii aan cabaar yar fadhiyay waxaa soo galay iridda ka soo galay masaajidka nin walwalsan oo murugaysan oo soo galay masaajidka ayuu salaamay. 2 rakac loogu talagalay ayuu tukaday, kadib salaad ayuu u istaagay baryo oohin ilaahay subxaanahu wa ta'aala ayuu maxaa la dhahayay wax weydiisanaya oo gacmihiisa kor ay u taagan yihiin. murugo fara badanna way ka muuqataa, ilintiisana way qubanaysaa. wuxuu dhahay aniga run ahaantii ninkaas marka uu soo galay waan yaabay, waayo xilligaas xilli qof bilaadan ah inuu soo galay masaajidka looga bartay maaha ilaa midka ilaahay uu toosiyo oo wadada uu ku toosiyo xaqa mooye. wuxuu dhahay aniga waxaan ku dhahay ninkii ayaan u dhawaaday oo waxaan ku dhahay walaalow maxaa kugu dhacay, saacan masaajidka ku keenay waliba adigoo murugaysan oo qiireysan, ilin ay ka muuqato wajigaaga, wax fahansiin dhibaatada ku haysa wax miiga sharaxi kartaa. markaas ayaa wuxuu igu dhahay haddii aan kuu sheego hataa wax faa'iido ah kaama helayo, waayo arrintan waxaan u sheegtay Allah subxaanahu wa ta'aala, asiga ayaana jawaab ka raba oo ilaahay ayaan ka sugayaa fariinteeda ilaahay ayaan u dirsaday. markaas ayaa waxaan ku dhahay waxaa laga yaabaa inuu ilaahay fariintaada aqbalo ee i weydii waxaan ku weydiinayo bal wax yar sharaxaad hataa iga sii murugta ku haysato haddii aad wax ku siin karo si aan kula qaybsado xanuunkaaga. markaas ayuu wuxuu ku dhahay berrito subaxii ama 2 saac waxaa qalliin galayo xaaskayga, mana hayo lacag shilin ama qalliinkaas lacagtii aan ku filin lahay ma hayo, waxaana laga rabaa 15,000 oo riyaal. wadamadaas carabta ayuu joogaa ninka. wuxuu dhahay 15,000 oo riyaal ayaa qalliinkeeda liigu xiray, lacagna ma hayo, shilin xataa Allah ka dhiga waxaan isku furto ma hayo. marka ilaahay subxaanahu wa ta'aala ayaan gacmaha u taagtay, asiga ayaana wax ka raba oo isiinayo. aniga bilaadan kale aan aadam ma lahan, laakiin Allah subxaanahu wa ta'aala ayaan u imaaday, asaan gurigiisa ku jira, asaga ayaan gacmaha kor ugu taagtay, asiga ayaana igu dhahay ad'uuni astajib lakum, asiga ayaana ka sugayay ayuu dhahay, arrinteedana u bandhigtay. wuxuu dhahay ninkii meesha jooga wuxuu dhahay waan yaabay ninkan aaminaad intaas la ilaahay uu aaminay iyo kalsoonidiisa iyo ilaahay subxaanahu wa ta'aala sidoo ugu soo jawaabayo. wuxuu dhahay waan la qayrooday, waan iska soo baxay, waxaan dhahay insha Allah khayr ay noqonaysaa. waan ka soo tagay, salaadii ayaa la iska tukaday, salaadii leelkii aan caawa dhan tukanayay. salaad subax markii la soo gaaray waxaan ahaa nin meesha laga caan ka oo sheekh weyn ayuu ahaa.
wuxuu dhahay salaad subax ayaa waxaa lagu dhahay inoo tuji adi maadaama aad masaajidka joogto adiga ayaa ku fiican inoo tuji salaada subax. sidii ayaan salaada subax ku tujiyey. markii aan tujiyey qiraa'adeydii oo codkayga kor u qaaday salaada subax ilaa codka kor ayaa loo qaadaa soo maahan. wuxuu dhahay markii aan tukaday ayaa waxaa ii imaaday oo salaadii aan ka baxay nin ayaa ii imaaday. ninkii meesha ayaan isku salaanay. wuxuu dhahay sheeqow waan ku taageeraa maxaa la dhahayay meel walba fiidiyoyi waxaan ka daawada muuqaal social media ayaan kala socdaa waxaa tahay nin wanaagsan arrin ayaan rabaa inaad ila fuliso wax yar banaanka inoo bixi gees inoo bixi. wuxuu ku dhahay waa yahay ayaan ku dhahay waa israacnay arrintii ayuu iiga waramay oo wuxuu igu dhahay waxaan ahay nin maanta maalqabeen oo xoolo haysto alxamdulillaah hantideydana waxaa ku waajib noqotay sako. sakadaasna waxay noqotay 15,000 oo riyaal. waxaan rabaa inaad ila sheegto ama ila raadiso qof yacni lacagtaas qiimahaas leh qof u qalma oo aan siiyo. wuxuu dhahay run ahaantii ninkii ayaan waan yaaba ayuu dhahay ninkii ayaan ku dhahay adiga ma ninkaas masaajid ninkii ayaan farta ugu tilmaamay ma ninkaas ayaad la soo sheekeysatay mise aniga ayaad igu dhadheeleysaa. markaas ayaan ku dhahay maxaa sheeqo se wax wada aniga qof kale u tagay mala adiga ayaan ku imaaday arrinta bal fahansiin. wuxuu dhahay aniga kuma sheegay bal ina kaxee ninkaas ayaan aadeynaa. ninkii ayaan u tagnay waxaan ku dhahay qaliinka naagtaada ama xaaskaaga meeqa waaye. markaas waxaan ku dhahay wuxuu ku dhahay 15,000 oo riyaal. wuxuu dhahay ninkii oo sadaqada waday oo sakada waday ayaa wuxuu ku dhahay maqlaysaa ninkan. wuxuu dhahay xalay oo dhan ilaahay ayuu gacmaha kor u taaganayay arrintiisa ilaahay subxaanahu wa tacaala ayuu u sheegtay wuxuuna weydiistay lacag 15,000 oo riyaal ah. haddana ayadoon shilin lagu darin shilinna laga dhimin ilaahay adiga ayuu kuu soo dhiibay waayo ilaahay adoomadiisa asaga ayaa isku dhaqo. ilaahay adoomadiisa asaga ayaa siduu wax ku siisanaya garanayo. marka ninkan ayaa loo soo dhiibay ilaahay bal fiiri ayuu dhahay ninkan kalsoonida intaan leeg uu allihiisa ku qabo iyo maxaa la dhahayay ilaahay siduu gacmaha ugu taagtay iyo sidii isla markiiba loogu soo jawaabay oo adoomada loogu soo dhiibay adoonkan ayaa loogu soo dhiibay. wuxuu dhahay ninkan ilaahay ayuu xalay dhan gacmaha kor u taagayay ilaahayna wuu ka aqbalay baryadiisa oo sida uu dhaqsiha badanna waa loogu soo jawaabay. lacagtii uu dalbadayna iyadoo shilinna ka dhignayn shilinna lagu darin ayaa loo soo dhiibay waayo adoonkan ayaa loogu soo dhiibay. wuxuu dhahay ninkii sakada waday ayaa wuxuu ku dhahay hadda ayaan helay ninka ku waajib sadaqada in la siiyo oo wuxuu ku dhahay waxaad ii sheegtaa yacni dhakhtarka ama isbitaalka akoonkiisa ii sheeg si aan lacagtan ugu shubo xaaskaagana ay camaliyada u gasho. ninkii akoonkii ayuu u sheegay lacagtii ayuu ku wareejiyey camaliyadiina naagta way gashay. alxamdulillaah bal fiiri ninkan sida ilaahaygiisa subxaanahu wa tacaala uu u kalsoon yahay. ma uusan dhihin hebel ayaa wax ka doonanaya ama hiblaayo ayaa wax ka raadinaya ama deen isii ama yacni icaawiya midna ma uusan dhihin. kaliya wuu soo kacay labadii habeennimo ilaahay ayuu gacmaha u taagtay salaad ayuu ula imaaday wuxuu ula imaaday niyad yacni degan qalbi diyaar ah ayuu ula imaaday. ilaahay subxaanahu wa tacaala qofkii isku xiro marna ma dayacayo waayo ilaahay wuxuu ku dhahay adcuunii astajib lakum. xadiis kale ayaa jiro laakiin hadda wuu iga maqaya oo wuxuu leeyahay ilaahay yacni adoonkeyga waxaan ahay maladiisa siduu iga maleeyo ayaan ahay. hadduu adoonkeyga iisoo dhawaado waan usoo dhawaanaya dhudhun hadduu taaka iisoo dhawaado taakadaas in ka dhow ayaan usoo dhawaanaya. marka ilaahay subxaanahu wa tacaala ha inaga dhigo kuwa fahma kana kaaftooma bini aadanka waayo albaabka dadow haddii maanta aad gargaraacdo waxaa lagu leeyahay yacni haddii maanta lagu soo dhaweeyo beri laguma soo dhaweynayo. haddii yacni wiig lagu soo dhaweeyo wiiga labaad laguma soo dhaweynayo. qasab weji bedel ayaa imaanayo dhibsasho ayaa imaanayo laakiin ilaahay subxaanahu wa tacaala kuma dhibsanayo. haddii aad 10 mar ka badan ama 100,000 oo jeer ka badan aad albaabkiisa istaagto adoonkeyga wuxuu leeyahay waan jeclahay asna wuu i jecel yahay oo wuu kusoo dhaweysanayaa oo ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu kugu bedelayaa badal kheyr qabo. haddii oo ilaahay wuxuu dhahay adoomadeyda yacni markii samada laga jeclaado ayaa dhulka laga jeclaanaya waayo samada haddii laga jeclaado waxaa loo soo sheegay malakul jibriil dhulka ayaana loo soo gudbinaya maxabada bini aadanka ayaa lagugu beerayaa. isku day inaad ilaahaygaada isku xirto isku day inaad ilaahaygaga u dhawaato ha weydiisan bini aadan waxba ha weydiisan bini aadan ku dhibsanayo ha weydiisan waxba bini aadan wajiga kuu bedelayo ha weydiisan bini aadan kugu caynayo beri ka maalin baahidaada.
ilaahay kuguma caynayo, kuguma fogeynayo, ilaa ilaahay subxaana watacaala wuu kugu jeclaanayaa, wuuna kugu soo dhaweysanayaa. waayo ilaahay wuxuu dhahay adcuunii astajib lakum, ibari waan ku siinayaa. oo ilaahayna wuxuu ku dhahay markii aad nimcada hesho uu kuu zaa-idiyo, yacni nimcooyinkaaga dhan ilaahay uu ku dhammaystiro, midka aanan igu shukrinin ama igu mahadnaqin nimcadeeda waan kala laabanayaa, kii igu mahadnaqana oo igu shukriyana waan u zaa-idinayaa oo waan u badinayaa. waayo aayad quran ayay ahayd soo maahan. ninkii ibaryo oo yacni nimcada aan sii igu mahadnaqo waan u zaa-idinaya, laakiin hadduu igu kufriyo oo igu madax taagana waan kala laabanayaa. marka ilaahay ha inaga dhigo kuwa xaqa fahma, kuwa fahma wanaaga, ilaahayna ha ina soo hadeeyo. kaana hanuunsanan ilaahay ha soo hanuuniyo, midka hanuunsanna ilaahay hanuunkiisa ha ku dilo, oo ha inaga yeela dhammaanteedna kelimadeena ugu dambeyso maalintan adduunka ka faaruqayno, laa ilaaha ila allah muxamadun rasuulullah. insha allah waxaan idinka tegayaa kulanka muuqaalkan muuqaal kale oo qiimihiisa wata insha allah. adigana la wadaag walaalaha kale oo ha ka xasdin. waxaa laga yaabaa adoon dhibaateysan, adoon cariiri ku jiro inuu dhageysto oo ilaahaygiisa u laabto, uu ka baxa cariiriga, adigana aad lagaaga mahadnaq uu kuu soo diro insha allah. waxaan idinka tegayaa kulan dambe oo xiiso leh. wassalaamu calaykum waraxmatullah.